dalkan waxaan doorasho madaxweynaha oo ka dhacaysa ma jirto lacagta iska khasaarina. Bismillahir Rahmaanir Rahiim. Alxamdulillahi rabbil caalamiin wasalaatu calaa sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ilaahay ma hadla subhanahu wa ta'ala. Ilaahay waxaan ka baryaa subhanahu wa ta'ala marka hore Ilaahay inoo shubo roobkii. Ilaahay subhanahu wa ta'ala roobka khayr qaba oo nusqaalahayn. Ilaahay subhanahu wa ta'ala ayaan ka baryaynaa. Noocanka badweynaysa Ilaahay waa u mahadnaqaynaa subhanahu wa ta'ala. waxaan maanta jecelahay inaan shacbiga reer Soomaaliland u bayaaniyo maanta xaaladda dalkeenu marayo. waxa ogtiin markii komishigan isku haysanay 2 sano iyo badh ayaanu 7 xubnood oo komishana ayaanu kula heshiin weynay madaxweynaha. xubin uu soo magacaabay oo sharciga ka soo horjeeda oo shuruudi ka soo horjeeda ayaanu ka furfuri kari weyn. waxa dhacday doodiyo socota oo wali aanan ku heshiinin oo magacaabay ayaan u tagnay gudoomiyaha maxkamadda oo kuwii kale aan hadhaarin baan aad xaaji cali iyo afray dhaari markaasaa dhaariya hadalay istoorta markaasaa kii aan isku haynay wuxuu soo magacaabay iyo kii kale uu ka soo magacaabay xafiiskiisa madaxtooyada ayuu labadii gudoomiye ku jooga ka dhigay. waa la dhex galay waanu ku heshiinay inaan dayno waxa lagu heshiiyey in asxaabtana markay doorashaasi dhamaato xabad loogu dhigo oo sagaal laga dhigo. waanu kala seexanay international tiyo joogaan wadamada ina taageera si baan doorasho ku galay. doorashada waa ogeydeen markaanu galay 4 musharax buu iga xiray. kaas uu leeyahay maxaa anoo isku reernahay xusbiga iska sharxida gudoomiyaha xasbuna allahu wa ni'mal wakiil waan iska aqbalay waan iska aqbalay. waxay socotaba waxa la gaaray doorashadii waqtigii madaxweynuhu 25 August uu yeeray gudida doorashooyinka wuxuu yiri doorasho anu waan ka soo horjeedi jiray oo aan runtiisa uga soo horjeedi jiray wax ku dhislayla oo tii u dambeysay ee abaarta siiraayo annagaba isku afdhaafnay. anu waxaas wili waan ka soo horjeeday maanta afka laga maqal maaye soo sameeyay qorshihii lacagtina waan hayaanus. wasiirka maaliyadda Saad Cali Shire ayaa tagay Nairobi wixii doorashada waa qabanayna 6 milyan oo haynaa. intii kale waxaan doonayaa dadka naga caawisan komishiga ka daba tagay inuu silsileey ku yiraahdo dadka ina caawiya wadamada ina caawiya caalamka waxay ballan qaadeen intii kala bixiyaan. November ma anaguna aan tagnay inaan xayadaan israacno 3 xusbi waxa xanuunsaday korneelkii ana Ismaaciil Ali Abukar ayaa xanuunsaday Maxamed Kahawna raaci kar waayay wixii idinka naga wakiila. waxaanu geynaa codsiga international community sodonkeedii bay yimaadeen madaxweynaha u tageen doorashadan qabanaya buu yiri way go'antay lacagtina intee waan haynaa saasoo nagu wanaagsanay. waxay balay ka dhacday wadaniba wax u galay kongareeskiisa xisbiga waxa lagu wareejiyay xirsi portaalkaasi arrintu ka bilaabatay madaxweynaha halku kacdoon ka kiciyay. madaxweynuhu markaa wuxuu ekaatay inuu kala garan waayay dalkii dhibaatadiisa iyo xirsi cadadiisa uu kala garan waayay. waxa dhacday si oo madaxweynuhu soo celiyay sharcigii ahaa qorqorqooshka hadday noqoto doorasho xeer iyo dastuurka ayaa sareeya ee ka soo taliya baarlamaanku uu 3 beej soo raaciyay ayay qool iska ashkatootay. ina kooraha hadlay wixii ururada way fureen. waxaan u tagnay ninka la yiraahdo aadan xaaji cali waxaan organ waa u dirnay war arinta inaad qabato ma ahayn
araajida inaad qabatama yahay baarlamaanku kuma soo qorin hadduu baarlamaanku yidhaa waanu shaysanaaye ka soo tale uu soo socdo guddoomiyaha baarlamaanku de xaq bay ahaan lahayd faraha kala bax kalamuu bixine wuxuu ka keenay wax aan adduunka ka dhicin ayuu keenay oonu sharci u lahayn xeerkii ahaa Somaliland isdila uu laalay laakiin wuxuu ku soo daray qodob aanu xaq u lahayn uu leeyahay ha laga saaro in doorashooyinka ururada lagu xidho doorashooyinka magana deegaanka wax dhici karana maanta adduunkana ma dhacdo doorashooyin toos oo dhacana ma jiro xaqna uma lahayn waxaa ka caddaatay inuu guddoomiyihii maxkamaddu uu noqday shaqaale u shaqeeyay madaxweynaha amarkiisa qaato uu laabo hadda wax maanta dhacday waxa weeye madaxweynuhu wuxuu leeyahay doorashadii waan qabanaya wuxuu leeyahay waan idin baabiinaya wuxuu leeyahay commissionkii baan baabiinaya diiwaangelintii ma jooji waxaan dee dalka hore loogu arag madaxweyne doonaya kursi kororsi uu jiri jiray laakiin waxaan jiri jiray madaxweyne xukuumadii ku taagnaa doorashooyinku ka saara meesha madaxweyne waan u tagnay laba jeer baan u tagnay 28 baan u tagnay 18 bisha markay dhacaysay ma habeenka horeeyaan u tagnay waxaan ku heshiinay inaan isku nimaado inaan arrimaha taagan ka wada hadalno habeen hore u tagnay habeen hore waxaan helay madaxweynihiyo taladiisu meel taalo oo ilaahay subxaanahu wa tacaala quruur ku jirto kibrkana waa bini aadamku wax ka mamnuuc wuxuu yidhi komishanka ka saari maayo dadka baaliya madaxweynuhu yidhi doorashooyinkaa soo horeynaya madaxweynuhu wuxuu yidhi urur baa noqonaysa waxaan de intaasina ma qabato dalkana ma qabato horeyn u soo galay xeerkeen wuxuu qoriyaa doorasho waxa geli kara oo 3 xafladood loo geli kara toosa ta madaxweynaha ta baarlamaanka iyo ta deegaanka adduunkana doorasho toosi ma dhacdo waxaan nidhi commissionku ismay qabsanay waxa isqabsay guddoomiyihii iyo shantii kale waana sunne inay isbedelaan horena 3 jeer bay isku bedeleen haddaynu ku fahamnay inay isqabsadeen inagii baa shareholderska 3 xusbiye meenu heshiisiin oo hadda guddoomiyaha si qadan laga riday aynu nilaaho ku noqdo arintii wixii ma sharciga siinaya dadku galiyay oo yiri baala waan wada gaala waxa ku jira xitaa qaar laha ururan furan ayaa ku jira wixii brit hadday yiraahaan kala eri waan kala eriyaa madaxweynihii wuxuu taladii jeebka ku qaatay waxaan anagu aan daan ugu laaqayn ayaa nagu laaqay waanu ka nimi wuxuu sameeyay 4 qof la soo celiyay oo sharcigu leeyahay soo dhamaadeen ayuu handana u yeelay in adeer ii dhaari u dhaari xalayta sanena ururo guddoomiyaasha ururada siyaasiga had may guddoomiyaal noqdeen had ma la ansixiyay had ma shahaad la siiyay had ma aragnay dad urur furto madaxweynuhu ugu yeedho dambeyn waxa weeye Faysal iyo Cismaan waa inta ka ridiyaa meeshan iska saarayaa hadii doorasho dhacayda taada horeyse horta taada qabo 13 waxa la shacay reer Soomaaliya maanta way ogtihiin xaalad dadkeen waa hayn baa goobto dadka ka shaqeynayso ka qadaami jireen abaar baa jirta koofin baa dhacay adduunka sicid barar baa ku jira Soomaaliya maalin kasta markay soo hooyay halka waxa fadhiya dad masaakiin oo dumar ah oo wax cunaan la ayaa maalin kasta horiga ku fadhiista inaanu maanta handana aanu wax aan sharci ahayn oo madaxweynuhu dusha ay ka saaro de waxa la yiraahdaa shacab madaxweyne kuma qabata taas shacbiga ka xishood baaleen maanta shacbigan arinta wadada u qaaday waa wadadii 94kii uu si fiican u qaaday waxa u daliila maxamed kaahin oo luqadii ku hadlayay 94kii leh ku hadlaya oo iloobay taariikhda xun in la dadka xasuusiyo
oo moodiya maanta maalinta la isu xuquuqin jiray xamar baa la doonaya maxamed kaahin waxaan ka xumahay isaga oo ah wasiirkii amniga inuu maanta qofka amniga khatarga gelaya inuu isaga yahay waxaana shacbiga reer Soomaaliya sheegaya ninka musabixi madaxweynaha ku wada afxumada qarin jemiska waa maxamed kaahin waxa la yiri laba sano korsanaya laba qofna oo ku soo saaray oo oradi adan ku sharaxaya aanu laba sano ka bacdi ma shaqeyn kare maxamed oo cidna ku sharaxi mayso dalku habka ku heshiiseen hab ku soconaya ma waxaan doonaa yeeliya waana shaar koronaya oo seen doono keenay Soomaaliland waxaan aad ugu mahadnaqayaa mushaahidiinta shalaytii kala hadashay soddonkan sano halkan joognay ee dalku xortaha labada korneel way naqaan amalkooda oo daweyn wada u soo taagneen ragay waaweyn laakiin waxay shalay ifiyeen beejadkoodii markii ahaayeen jabada ay waa mahadsan aad mahadsan ina shacbiga taariikhdii ism ahaydeen marka dibadda wada joogteen halgemiseen halkii ka jiraan sheegtaan hadiyad baad ku mahadnaqay hadda waxaan sheegaynaa waxa dadaal weyn sameeyay Ali Waracate oo u soo taagnaa dagaalka sokeeye oo anigu soo taagnaa dagaalka sokeeye oo lahaa guddi afayeenkii magaalada saayay guddiga badtoonta magaalada Hargeysa way kala marnay burco waa laga wada maqnaa dadkeenu waa iyagoo soo guuriya oo wali aan ka soo guurin ayaa dagaal ku dhacay dib u qaxeen raggii waxaa sameeyay ee ka dambeeyay waraga maanta nasiibkooda madaxtooyada fariisay wixii dhacay darisku may qaadan ana way ogtihiin saddex jeer baan dhahay marna ma wadanka waxaan mar kursi ilaaha bixiya dalku nabad ma yahay waa ana endorse gareeyay saddex jeer baan endorse gareeyay waxaan arkaa wixii aan ku ogaa in caruurtay kaga imi in sanadka nabadgelyo doonayay wixii wadadii oo lagu socdaan qaray haddaba waxa yaab leh Ali u dadaalay waa shakhsi kaliya waxa yaab leh dadka reer Soomaaliland in arkay si u barwaaqaysteen ee moolasha dhistay ee arkay wax socda ee maanta oran waaye war madaxweyne jooji waxan bila sharciga anagu sharci baan doonaa sharci Ali uu mahadsan yahay uu noo yeedhay habeen hore isaga ayaa tu dadaalay inuu ballan ka soo qabto la isku soo noqdo madaxweynuhu raali kama ahayn Ali wuxuu yiri ha oranina wala kala kacay madaxweynuhu wuxuu yiri ma been ba sheegan waynu kala kacnay haddaba anagu u sheegina Ali oo la wad mahadsan tahay waxaan u sheegnaa inaanu Maxamed Kaahino ku iimaaneen habeenka sabti ahad soo geliso ku iimaan mayno qorshiina waa cadaysateen guddidiiba daariseen niman aan urur saxan oo sharci ahayn oo la wili diwaan gelin baa qaabiseen oo cad ee doonaysa ragan ugu bedeshaan hadda waxaan idin sheegnaa shacabka reer Soomaaliland haddii ay xukuumadii doorashooyinku ay joojiyeen Muuse iyo Maxamed Kaahin annaguna waxaan qaadanaa si wadanka loo badbaadiyo talaabo kastoo dalka lagu badbaadinayo ayaan qaadanaa waxaan leenahay dadkayga haniya jabina waa ka xanaaqday labadii jeer aan u tagnayba laakiin waxaan diidinay in la yiraahdo wada hadal ma ogola waanu joojinay u tagi mayno hor fariisan mayno qorshay samaysteen anna qorshaha iyaga waanu samaysanayna ku badbaadina dalka waxaan leeyahay dadka reer Soomaaliland war wadada la maraya war waa wadadii 94 war Maxamed Kaahin wixii ka yeeday way maqlisay war si dadku uga xanaaqay way arkisay sabab 3 saacadood ayay intay dhahan waan qabnay 20 guuroodii halkay ka sheegi lahayn mashruucooda iyo siyaasadooda iyo wixii damacsan ay naafilagaadeenayeen ana wala yaqaan Faysal waa ayuu xamar buu socdaa waxaan ku yiri wardi hadeen san noo dal noqon meene ajidama ku darsanaa in wadanka si wada kana in kala baan ku yiri habeenkan u tagay intaasan ku yiri hal wala fadhi laakiin waxaan ka taaganahay waxa arkaysa tii u dambeysay mag Xasan Sheekh la doortay waxaan ku lahadliyo arkaysa Maxamed Kaahino ka daa dadka dhibaatada waxaan leeyahay madaxweyne hadday ay noqday baarlamaanka ay noqday wasiirada kuwan arkay haddaan arkay xusbigaaga kuwad ka doortay kuwan arkay dee tolkaa la tasho tolkaa weer tolkii oo qabta waa mar afraad kan sheegayay
war haddaynu xeer ku kala socon weyno war waxaan ku dhaqankeynay war de Faysal naga qabta yaa xaq baa loo leeyahay leeyahay war haddaba Muuse dalka ka qabta oo ku soo sharciga ku soo Suudaan war haddaynu maanta aynu balaayo waa laga hortahay maanta ka hortagi weyno war dalkeenu maanta dadkii waxna uma haynaa waxna u doon garan maysaan aqoonteedii ma lehidin akhlaaqdeedii ma lehidin behaviorkeedii ma lehidin ummadda way kala tagtay dadkii dalkeena lahaa reer awdan ugaaskoodii ayuu ka celiyay halka shirtiga ka hortagay ina samata waxa reer Laascaanood ugaas garaad ma nagala joogay garaad jaan isa wax ka duuday maanta madaxweynaha ma gali karo waxa salka lagu hayay reer Sheekh Saaq ayaa oo ra'ayigana marka hore keenay dadkuna nabadna ku taalay reer Sheekh Saaq kale tag wadi arki wax tiifadii ku taalay marka Soomaaliland madaxweynaha ka noqonaya oo kan dakhli ka noqonaya waatay dadkii uu kala diray reer wuxuu nagu yiri maxay noqon reer la soray markay nagayteen saraakiisha inta kale raacay buu hoodle ilaa 1500 oo nin oo hubaysan ayaa jooga shalay waxay u soo dirtay ma jeerteenaya 300 oo askari soo dirtay hadda waxaan sheegayaa raggan qaabiliyo dalkan waxaan doorasho madaxweynaha oo ka dhacaysa ma jirto lacagta iska khasaarina sharci baa lagu soconaya sharcigu ku soconayna shirbeeleed baanu taginaa ti aan booramato ee la tagaya laakiin waxaan u wadaa wax soconaya ma waxaan leeyahay dadka reer Soomaaliya nabadiina adkaysta hadduu soo qabiyaad qiyaaray hala ciyaarina taas mid qarannimo la ciyaar waa asxaab qaran oo cid kasta ku jirta weey oo kale 51 baan leenahay xildhibaan ayaa leenahay majority-ga leenahay haddaan maanta raadiyaan la bixin cashuur shilin heli maysa saad cali sharo hakama soo fadhiida shilin heli maysa hadda waxa weeye madaxweyne ilaahay waxaad arag halka la marayo eeg intaasoo jaraal gu ergay wax lagaaga ergay riyaale wax lagaaga cigaal waxaad ku samaysay Cabdiraxmaan Tuur hadda tiri fadhiisan maayo maanta ka aqbal meeno Faysal iyo Cabdiraxmaan Ciro midkood ma fadhiisan iyo kursi laanta laga aqbal maayo ilaahay baa ma bixiyo subhanahu wa ta'ala laakiin dalka inaga buurin wassalaamu calaykum